madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafe Maxamed Cumar oo booqasho maalmahan ku mariyay deegaanada bariga gobolka Doolo ayaa booqday santarka Marqaan weyn oo ka tirsan degmada Booq ee gobolka Doolo. boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Marqaan ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay afaafka hore ee magaalada iyadoo madaxweynaha yuftigu hogaaminaya ay lug ku mareen bartamaha magaalada Marqaan waxaana madaxweynuhu uu meel fagaara kala hadlay dadweynaha ku nool deegaankaasi Marqaan. عقاشة وحجرتك أي هالك كوسو دوية مدحوينها وجنا بربحي بهيها ديجان كشرة أي وحيابه أي كقبتي حكومته ديجان كمرقان. degmada Booq santarka Marqaan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa bulshooyinka reer Marqaan sida aan chief iyo joogba ma taqaanay aysan uga kala hadhin soo dhaweyntaada waxay u helanayeen madaxweyne imaanshahaaga iyo soo dhaweyntaada waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ku leenahay madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow Marqaan. Marqaan waa hooygii suugaanta waa hooygii xorriyadda waa meesha ay ka bilaabantay xorriyaddan geeska Afrika run ahaantii waa meel aad iyo aad u jecelayd inaad timaado madaxweyne waxaan ku leenahay markasta ku soo dhawow barnaamijkeena si toosan u galaynaa waxa ku yaala dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare waxay leedahay hal ceel oo ceelkan ceelasha dhaadheer ah waxay leedahay health center caafimaad ah waxay leedahay oo kale animal health postigi waxay leedahay oo kale master balainkii si guud da'da magaaladani waa 76 jir haddii aanan khaldanayn intaasi waa kabis waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo oo ayadaha quraanka uu inoogu furo iyo wacdiga sheekh Muuse falyatafa madaxda sharafta badan ee maalintii koowaad ee madaxweyne soo istaago ee uu yimi mudane ilaahay adduunyadiisa ha ilaaliyo aakhiradiisana ha ilaaliyo xisbigiisa barwaaqana ha guulaystee Mustafe Maxamed Cumar waxaan u mahad celinaynaa oo salaamaynaa oo soo dhawaynaynaa ragga garbihiisa ah ee golaha wasiirada ah ee bidaanadiisa ah ee ilaa heer deegaan iyo heer gobol iyo heer degmo iyo heer santar iyagana waa u mahad celinayna waana salaamaynaa waxaan u mahad celinaynaa bulshooyinka reer Marqaan ee waxgaradka ah daraawiishtii uu hogaaminayay mujaahidkii weynaa ee geeska Afrika ama dhaqdhaqaaqa bari Afrika Maxamed Cabdulla Xasan ee warasadii eelkii uu ka dhashay
ay halkan joogaan fiigihii waa meeshii ay ku soo urureen ee ay ku tarmeen ee ilaa maanta ukuntooda ay taallo iyagana waa u mahad celinaynaa reer Marqaan duuduub ahaan baan ugu mahad celinaynaa gabdhahaan horraysiinaynaa wiilashaan ku xajinaynaa guud ahaan reer Marqaan waana u ducaynaynaa waana u mahad celinaynaa waxaynu nahay dadka deegaankana ama magaca guud ha noqoto ama deegaankan ha noqotee waxaynu nahay xisbiga barwaaqo ma wax kale aynu nahay assalaamu calaykum nin garta iyo niman garan haddii aan cidi garsooraynin gaf ninkii ku baakima haddii aan cidi ganaaxaynin oo aan lagu garaafayn ninkii gacan togaaleeya gabayba waxaan ku nacay ruux kastaaba qoobka soo geli geesaha haddii laysu dhigo gumuca suugaanta gigta samatar iyo aadan baa ugu guroonaa gaaxdii ismaaciil miraan gaawo loo culan cali dhuux gantaalihiisi baan lagu gadoodayn godkuu cumar cigaaldegi jiray baan cidi ka gooshayn gufaacadii darwiishkaan lahayn galangalkeedii waa sayid maxamed cabdilla xasan gufaacadii darwiishka baan lahayn galangalkeedii waftideenna guud waxaan u diri gacan salaameed gaar ahaanna madaxweynahan sharaf ku gaadhsiin gurigii dariiqada gaar ahaanna madaxweynaha baan sharaf ku gaadhsiin gobonnimada soomaaliyeed ee meel kastaba gaadhay geedkii ay ka aasaasantay baad galabta joogtaa halgankii gumaysiga raggii giringirta u laabay geedkii ay ka aasaasantay baad galabta joogtaa ee gurigii dariiqada haddii aad nabad ku soo gaadhay gogoshaadii iyo waxaad u timid goob lagaa rabo gurigii dariiqada haddii aad nabad ku soo gaadhay gogoshaadii iyo waxaad u timid goob lagaa rabo diraac gaag mareebaa wax badan gugu hadduu raago galbeed iyo hadduu meel fog iyo gooyo ka hilaaco socdaal loo guddoonsaday haddii uu geedi ku alcaansho nin kastaa garhkuu qaban wuxuu helaya gaadiid guuraha habeennimo dadkoo gamac yar loo diiday gelin hore haddii uu tago oo duhur la soo gaadho gabdhaha tii yar iyo kurebe way galangalcoodaane gurgurshaa wuxuu caan ku yahay xaajo gooniya waxaan uga gol leeyahay malaha weyna garateen mustafe baangeduu yahay cabiray maana gees marin war mustafe baangeduu yahay cabiray maana gees marin giraydhka inuu yahay haddii aan idin garwaaqsiiyo geelii inoo dhalay iyadoo goojo laga waayey goobihii cibaadada dadkoo waajib gudan waayey gabdhahoo jagboontiga fadhiyoo la isla gaaloobay yaa ma garanaysaa hadda gabdhaha oo jagboontiga golo ku foorjaynta dulmigii la galay ceebihii gacanta loo taagay allah kariim waad ila garanaysaa maan u malaynayaa nimankii guntaday meesha uu sabirku gaadhsiiyey rabbigeen wuxuu nagu galladay guusha maanta ah rabbigeen wuxuu nagu galladay guusha maanta ah odayaal gaboobay oo fadhiya gegidana aan joogno madaxweyne soo galay abidkood garanba maayaan waa kii koobaad soo saa maaha ya muddo dheer godkii naga dhinnaa baanu soo gudbinaynaa marqaan weyne gobol buu rabaa guuxna dami waa marqaan weyne gobol buu rabaa guuxna dami waa galabta noo saxeex cudurkii hore waa la gubayaaye soo sidaa maalinta tariiq la duqeeyey 1920 bay ahayd maantana waa 2020 boqol sana ka soo wareegtay maanta rajay qabaan inay wax ka helaan maanta boqol sano ayaa
boqol sannadood dadkaasi dowladihii ka jiray dhulkan lama shaqayn hadday xeelasalaasada hadday mingistada hadday tan tahayba weligay qof halkan jooga oo magaaladan u dhashay degmana kama shaqayn gobolna kama shaqayn dowladdaana uma shaqayn ma hunguraynba sababto dhashi daraawiishta weeye waxaa qashinka inay la shaqaystaan may rabin hunguri galaa oo dowlad ka galaa maalintaa timid baa ugu horreysay maantana waxay rajo ka qabaan boqolkaasana xakama ku xidhnaaye inaad ka furi doontid madaxweyne Mustafe waxaan rabaa inaan kuu sheego markii lagu doortay aan muddo aragnay inaad si sax u shaqaynaysid dadka deegaankan degan way tashadeen qurba joogta iyo dadka dalka joogaaba waxay ku tashadeen in ay dhistaan magaaladan iyo deegaanada ku xeeran ee dadku degan yahay arrintaas go'aan ka soo baxay gole 60 qof fadhiday oo ahaa golihii 60 qof fadhiday waxaa ka mid ah nin saaxiibka ah oo la yidhaha cabdikariin xasan gabaydhe madaxweyne ninka haysta jaamacadda City University Muqdisho ninkaasaa naga kaa dhaadhiciyey oo yidhi ninkan waa la isku hadlayn karaa anaa aqaana waa nin Soomaali oo wanaagsan waxaanu go'aansannay inaan dhulkayga soo degno oo aanu dhisano aanan dowlad sugayno waxaanu qabsan karna qabsano golihii 60 qof ahaa maanta wuxuu marayaa 10,400 oo qof oo contribution bixiya golahaasi marka haddaan gudagalo wuxuu qabtay markuu go'aansaday inuu magaaladan dego inuu isagu wixii dowladda qabsado waayo waa fahmi karayna dowlad cusub oo dadqal ka tegay oo minus ku jirta inay muddo u baahantay inay soo kabato isku tashigaas markaan go'aansanay waxaan go'aansanay magaaladayda weelkayga inaan hagaajisano magaalada Marqaan dadkii dibadda bar ku soo tashaday gudahaanu nimid markaan gudaha nimid dadka waxaan ku niri sidaan magaalo ku noqon mayna waxaan ku heli maynay dee baryadaada iyo waa la sida suga baahidaada hortaan hagaajino waxaa la yidhi maxaanu yeelnaa waxaan magaaladan ka dhigno masar balaan gelino dadkii waa aqbaleen sheeko dheer ka bacdi master balaanka wasiirka uu kula fadhiyo cabdisaaq sheekh biixi waxaanu nahay magaalada keliya ee Somali State jeebkeeda lacag ka bixisay ee guryaheeda dumisay injineerkiina waa jooga dumiye magaalada injineer Axmed Khadar hadda waa arkayay oo qaybtii labaad buu soo noqday isaga marxaati nooga 120 guri waa magaalada laga dumiyay iyo 13 barkadoodna waa la aasay oo biyaysan dadkaas hantidooda saa loo dumiyey iyagaa ku qancay iyagaa dantooda ka arkay askarina lama joogin magaalooyinka dowladdu ka bixisay masar balaanka ciidan baa fuliya annaga askarina lama joogin annagaa go'aansanay inaan magaalo noqono 120 guri waa xisaabinay lacagta ku burburtay waxaa weeye 43 milyan weeye guryaha lacagta ku burburtay lacagta barkadaha ku burburtayna 8,757,000 marka la isku daro waa 50 milyan 757 inaad qortaan banjara evidence-geedina waa hayayna adiladeedi intaas waa intaas burburka gaaray dadka arrinta labaad master balaanka waxaanu ka bixinay lacag 1,800,000 oo bir ah oo dadkani bixiyay dadka gurigooda la dumiyay bixiyay waxaanu go'aansanay inaanu ku xidhnaano meelaha noloshu ka jirto maadaama dowladda dad wanaagsan haystaan oo la isku halayn karo hantideedii baanu gelinay waxaanu madaxweyne Mustafe ka bilownay wado labahaada magaalada Jarmal oo 30 kilomitir ka inaga jirta waxaanu ku xidhnay magaalada Goobo Soddon xagga jirta Soomaaliya xigta magaalada Buuhoodle wadadaasi waxa weeye 120 kilomitir wasiirada qaar badan ka mid ah arkay waa sii gudbinayo magaalo carraweyn la yiraahdo dad qalka markuu halkan haystay aanu cararnay oo hanti badan naga gashay 20 milyan naga gashay oo hadda aanu ka soo guurayno bay wadadii hadda joogta oo Buuhoodle ka shishaysa 45 kilomitir targetkaygu waxa weeye laamiga Laascaanood inaan wadada geeyno oo ay u jirto hadda 60 kilomitir coronavirus-ka naga soo dhaxgalay waa gaari lahayd
arrintaasi waa intaas. arrinta labaad wadooyinkaasi madaxweyne Mustafe waa 160 kilomitir weeye wadooyinkaasi. annagu waxaan awoodnay cagaf baan marinay manana isan kireer roollarna ma haysano runtii caloosha hadda iga xanuunta waan soo maray wadadii dhir baa ka soo baxaysa waayo lama garaacin kireedarna lama marin roollarna lama marin roob labaad hadduu doo ay bay noqonaysaa. madaxweynaha waxaan ka codsanayaa annaga dowladda sharcigeeda waxaa ku qoran 30% qofku hadduu keensado 70 dowladda ugu daraysa. waxaan leenahay madaxweyne Mustafe haddii dowladdaadu ay way dhamaa gebgeb haddii dowladdaadu ay damaynaysa bay ku jirto waan fahmi karaa haddana dowladda dagaal bayba gashay. waxaana u leenahay annagu 70 kaan bixinay 30 noogu dar oo wadooyinkaas injineerka wasiirkii howlaha guudna waa fadhiya cabdifitaax sheekh bixiye hanaloo mariyo gireedar iyo rogle laami annagu uma baahnin kuwaasaan nagu filan wax badan oo ku baxayana ma jiraan. wadooyinka lacagta nagaga baxday waxaa weeye 10 milyan markaan isku daro wadooyinka iyo hosbitaalka laascaanood oo aan soo annagu gelin iyo 700 kun oo bir. magaalada Marqaan zerogeeda iyo hosbitaalka Marqaan oo aan u tagnay qof mid ku dhacday oo la tolayo oo toos lagu tolayo markaas jaali anagu aan u iibsanay solar kumana amaanin dantayada anaga ka aragnay 10 milyan iyo 700 weeye lacagta naga baxdo masal balaankana milyan iyo 800 oo kun weeye marka ma la isku daro weeye raaliyaada masal balaanka wadooyinka iyo hosbitaalka 10 milyan 700 kun naga baxdo. madaxweyne Mustafe waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan nala joogto. waxaan warkayga ku gabagabeynayaa dadka halkan degani hal qarni bay sugayeen madaxweyne cadaalada u yimaada iyo cid intay qiimayso waxa ay gooyaan siisa. waxaan leenahay annagu ku dhooran mayno dadkana kormariyo waxa naga dhigo waxa naga dhig laakiin waxaanu leenahay madaxweyne magaaladan hadda xaafad baad joogtaa xaafadna waad ka soo gashay 2 xaafadood kalena waa ku dhimanta iyo santarka magaaladaasi gumaystayaashii iyo wixii u shaqayn jirayba waxay go-aan ku gaadheen inaan lagu noolaanin iyo gurigaagii iyo dadkaagii iyo deegaankaagii aad madaxweynaha wahay ku soo dhawow. dadkan halkan fadhiya weligood may arag madaxweyne Marqaan yimaada may arag. ragga 9 jirada ee Marqaan jooga weligood may arag Marqaan madaxweyne yimid. waxaad noqonaysaa madaxweynihii magaca kula baxay caanka ah ee dalkan Marqaan yimaada ee koobaad ee taariikhda galaad noqonaysaa. inta markaa ka soo gudbo dadkan halkan fadhiya waxaan jeclaan lahaa anoo xaggaa u jeeda anuu odayaashan kamid ah xaggaaga anoo u joodaan jeclaan lahaa dadkan halkan jooga inta ay leeyihiin waa xusbiga barwaaqo oo labadii kaadhkiisii wakaa bilbili barwaaqo waana wada sidanaa wax aan sidan odayaal iyo hablo iyo dhalinyaro iyo culimo malihin waana sida loo sheegay adaanu ku dooranana adiga. waxaan leenahay dadku waa kala beelo badan yahay. intii aad habar yooni soo dhaaftay degaankii habar jeclo soo dhaaftay isaaq ee halkaa u baaleeyay deegaanka dhulbahanta aad soo gashay dee dulku degmana male konsolna male biyo badanna male dhaqaatiir israacsanna male wadooyinna male madaxweyne adiga kaa horeeyana ma imaan. waxaan saa u galayna waa madaxweyne adiga kaa horeeyaan imaanba. waa meel aan dadkii dee xukumi jiray ee madaxda u ahaa ee madaxweynaha u ahaa ayna maanta ka horba imaan. marka waxay nala tahay dadka yagan halkan fadhiya iyo dadkii aad dhulbahanta ka soo gashayba dhammaantayaba annagoo codka iyaga iyo afka iyaga iyo maskaxdayada iyo taladayadu isku mid tahay. mar haddii maanta madaxweynahoodii ugu yimid wixii ay dowlad degaanka ku lahaayeen ee xaq ahaa ee degmo ahaa
gobol ahaa biyo ahaa caafimaad ahaa horumarka dalkoo dhan ahaa dhabooyin ahaa iyo laamiyo insha allah haddaanu helanaa waa kaa rajaynanaa waana helanaa ama hadda aan helo ama markaanu ku dooranay aad guulaysatid aan helle waa helanaa insha allah taasay u fadhiyaan sugaya hadalka badin maayo dee sidii loo soo sheekeynaya taariikhii looga soo sheekeynaya waad maqlayseen waxaan leenahay soo dhawow degaanka ay ku soo dhawow wixii uun dee talooyin dambe ana waa insha allah waa wada joognaa lagu tilmaami maayo dalkaaga iyo degaankaaga oo aad timid madaxweyne hore uusan imaan ilaahay hadda ku keenay aad arki doontid kalmad yar baan ku darsanayaadoo aan marku dhaafi gaadhay degaankan Marqaan baa la yidhaahdaa daaroodoo dhan waa degan yahay daaroodoo dhani waa degan yahay reer waqooyi nimanka ay saaqlayahana waa degan yihiin oo dhinaca isku hayaan hadda guddida fadhida ay ku jiraan hadda reer Marqaan u shaqaynaysa hawiya waa degan yahay oo dhinaca isku hayaa baraagihiisa ka qodan oo odayaashii cuqaashi hadda waa fadhiyaan degaankan dadka ku nool degaanadan oo dhan waa meesha heer santarka ah ee caalamiga ah dadkoo dhan wada degan yahay celinaynaa hadalka waxaan ka gelayaa hal qodob oo ah in baahiyo fara badani jiraan intii la yidhi waa naloo yidhi inta aan la odhan waxaa ka mid a anteeno male inkastoo la taabtay haddana haddeer wax isgaarsiina male caafimaadka waxaan la aadnaa dadka jigjiga iyo waxaa loo qaadaa marqaarbitaara herer baa loo qaadaa waxaa loo qaadaa Soomaaliya markay degdeg wuxuu noqdaa emergency noqotaan meel la gaari karin aad bay maartay u liidataa halkaasi wadooyinka waa laga hadlay waxaan dhammaanteen aan ku celinayaa waxaa jirta salaad casar baynu soo galnay waxaa laga yaabaa dad badan aan tukanin inagu jiro xuquuq aynu iskala dardaaranno xuquuqda ilaahay baa ugu mudan waxaan leeyahay dhammaanteen faraa'isha ilaahay aan wada ilaalinno waxa ilaahay inagula xisaabtamayo ayaa ka weyn waxa inagu iskula xisaabtamayno waxaan leeyahay dhammaanteen qofka hadda faralka casarka aan tukanin intayn ha tukado ilaahaynu ka wada cabsanno madaxweynaha waxaan leenahay dhammaan xisbiga barwaaqaynu wada nahay waa tii laynoo sheegay horan loo yidhi waan ku taageersanay waana ku ducaynayna kursi ilaynu kugu raajiyo dhammaan waxaan codsanaynaa waxyaalaha la codsaday oo dhan wixii aan la qaban karinna in dee xilligay habboonaato la qabto wixii degdeg loo qaban karo degdeg naloo qabto anuu konsolka odayga adeerkay sheegay waxaan leeyahay madaxweyne gobol baanu u baahanay iyo degmooyinkii waxay ka suurowdo laakiin dee marba wixii la kari karaa dantu keenaysaa marka waxaan dhammaantiin idinku wada salaamayaa salaanta islaamka waxaa ku yaala dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare waxay leedahay hal ceel oo ceelkan ceelasha dhaadheer ah waxay leedahay health center caafimaad ah waxay leedahay oo kale animal health postigii waxay leedahay oo kale master balainkii si guud da'da magaaladani waa 76 jir haddii aanan khaldanayn intaasi waa kamis waxaan rabaa hadda inaan u yeedho qofkii ugu dambeeyey dhammaan shacabka magaalada Marqaan iyo odayaasha soo dhaweyntii ballaaran ee noo samayseen markaan magaaladan oo maasha Allah shacab aad u fara badan ku nool yihiin insha Allah haddii la si xilli fiican aan u kala tagno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anaguna inaan shacabka nagala joogno in kaliya ma aha in mas'uuliyiintiina aragtaan annaguna aad baan ugu faraxsanahay inaan dalka soo baranno inaan shacabkii la joogno aqoon bay noo tahay wanaag bay noo tahay inaan dadkii dhageysano aragno wixii daraasad ahaayeen dad kale ka maqli lahayn annagu inaan ogaano waa muhiim walow inkastoo dhalinyarada halka joogta ayaa laga yaabay la yaabto anugu Marqaan hadda ka hor 20 sano ka hor aan nimid oo aan aqaan halka waddadan maray way weynaatay maasha Allah dad aad qurux badan oo fiican marka anaguna ugu faraxsanahay inaan nimaadno arrimaha hadaan u imaado magaalada baahiyaha ka jira way balaaran sida muuqata waxaa muxaati ka ah in network uu jirin oo maanta dadka inta alle halka jooga cid ay la xiriirayaan ay jirin waxa ugu horeysa waa xiriirka dad biyo u baahato dad dhaqan u baahato meesha la xiriirada haysanin waa dhibaato ilaa mararka qaarkood biyaha ayaa ka muhiimsan sababta cid u qeyshan lahayd haddaan haynin waxa kula xiriirada waa dhibaato Marqaan waxay ku jirtaa meelaha ugu horeeya ee hadda anteeno in la keeno la qorsheeyay meelaha ugu horeeya ayay ku jirtaa
inaan soo degdejinana waan ku dadaali doonaa waxaa kaloo ii muuqdo baahiyi aad sheegteen ama aan ka arka dhanka laydhka oo kale laydh la-aantii haddaad ka hadashan isbitaalka iyo shacabka laftigiisa laydhku ma oo keliya iftiin laydhku waa xadaarad laydhku waa information laydhku adduunka waxaad kula socon lahayd weeyaan telefishinadii baad ku shidan fariijyada baad ku shidanaysaa nolosha o dhan baa isbedelaysa marka marqaan waxay ku jirtaa meelaha iyaduna solarka in la geliyo 24 saaca lagu talagalay laakiin haddii arrintaasi ay jiimayso habeenta la sugayo waxaan maanta halkan ku go'aansanay inaan generator idiin keeno magaalo oo dhan anfaca oo ku sugtaan diyaa la yidhaa oo aan rajaynaynoo muddo bilbileeda in laydiin keeno si aad u sheegataan generatorkaas insha allahna doorka dambeed meesha maro iyadoo nuuraysa oo leyd leh aan aragno haddii aa la yidhaha dhanka baahiyaha kale magaaladu biyo ay leedahay ceel way leedahay dabcan in lasiib la hagaajiyo la socdo waa muhiim laakiin biyo way leedahay sida hadda baad ogtihiin boonding baa bilowday meel fiican maraya boondingkaas waa in la dedejiyo waxaan is leenahay waxbarashada aagan iyo dadka danyarta iyo reer guraaga wax weyn buu ka tari doonaa ma oo keliya boonding arday wax ku baratay nolol fara badan buu soo kordhi doonaa shaqaale fara badan ayaa boonding ka shaqayn doona oo deegaanka aan rajaynay inay noqdaan in dugsigii hore uu dugsi hoosiya dhexe ahaado kaas la bilaabay ee labada bloog laga dhisayna in la dhammaystiro oo lagu daro wixii ka dhinnaa dayr iyo waxyaalihii kale ka dhinnaa isagana hadda ayaan arrintaas samayn doonaa insha allah si dugsi sare oo gaara oo meel gaara ku yaalla waa halkii carruurtii radio kuwa isku dhex jiri lahayn ayna u imanin waxaan is leeyahay waxyaalahaas iyo waxyaalaha kale haddii la qabto bilow fiican wuu noqon karaa xagga horumarka arrimaha jidka xog dheeraadaan u baahannahay mas-uuliyiinta dadkii hadda halkan ka hadlay hawshaa bilaabay iyo xafiiskii jidadku ay nala joogaan halkan inay sarkaan ilaa caawa oo ay wixii ay ku wada hadlaan hadhow toole noo soo sheegaan ayaan ila fiican guud ahaan laakiin gobolka doolo jidadka uu ka dhiban yahay waad ogtihiin jidsiga in loo socdo waqti dheer bay qaadanaysaa haddii laamida qabdaar ka imanaysa ee wardheer soo gaaraysa marka ay dhammaato waxbaa iska bedeli doona waxaa kaloo jira waddo laami oo rajaynayno inay gaashaamo soo marto ilaa iyo booq ay tagto taas haddii ay hirgashana isbedel badan baa iman doona guud ahaan sidii inkuba aad sheegteen waan qirsannahay aaggan inuu yahay aag dib u dhac fara badan ku jiro gobolka doolo gobollada wuxuu ka mid yahay dhanka dowladnimada xagga tashiilaadka iyo adeega baahiyaha asaasiga waxoogaa aada u dambeeyuu ka mid yahay iyagoo guud ahaan shacabka deegaankuba u hooseeyaan haddana gobollada usii baahan ayuu ka mid yahay bariga gobolka doolana isaguna gobol ahaan marka loo uu sii daran yahay marka inaan taasoo dhan aan ka jawaabno weeyaan arrinta ugu dambaysa ee arrimihii qaab dhismeedka dawliga ee maamulada degmooyinka ama magaalooyinka aada soo qaadeen ilaa shalay sidii aan ka hadlaynay waan ka garaabaynaa in aagani uu u baahan yahay in xagga wax laga bedelo laakiin qaabkii loo geli lahaa sidii aan idiin sheegay sharciyadeedii iyo nidaamkeedii in la maro ayay noqon doontaa in dadku ay xaq u leeyihiin codsanna karaan sheegana karaan dowladdeena cadaadis ku saari karaan waxaasaanu xaq u leenahay hana la siiya ay odhan karaan ma aha wax barya ah oo wanaag iyo qalbi jacayl madaxa ka yimaada keliya laydinku siinayo waxaad xaq u leedihiin adeeg inaad heshaan xaq baad u leedihiin maamulo inaad heshaan xaq baad u leedihiin waan garawsannahay codnahaasoo dhan waana ka jawaabi doonaa insha allah haddii aa la yidhaa arrinta kale marqaan oo kale la xidhiidha waxay ahayd waa dhaweyd oo lasoo qaaday maamul magaalooyin waa lagu daray waxay muujinaysaa inaan laydiloosanayn idinkoo halkan ka hadlin idinkoo laydi iman iyadoo aad sabab la fadhiyo la wada hadlayo maamul maalmihii loo arkay inay magaalooyin noqon karaan waa lagu daray marka iyada waxaan dib ugu dhignay oo u joojinay maadaama ay u baahan tahay farsamooyin kale in xilligan haddana aan buuqna nagu bilaaban shacabkuna nabadgelyada iyo sidii doorashooyin loo geli lahaa xoogga la saaro laakiin in qaab dhismeedka noocaasa la xaliyo way naga go-an tahay haddii maamul magaalooyin la bixiyayna waad ku jiraysaan arrimaha degmooyinkana dib inta laysugu laabto qaabkii sharciga loo waafajin lahaa iyo qaabkii loo bixin lahaa in la galay noqonaysaa laakiin waan ka garaabaynaa inaad xaq u leedihiin waan ka garaabaynaa ugu dambayn waxaa idin farayaa dhanka nabadgelyada si fiican baad ilaa hadda aada u wadeen inaanu muujinno dulqaad fara badan iyo isu tanaasul dhexdiina iyo dadka kale ay jaararka la tihiinba sidii inkuba aad sheegteen halkani waa halkii xorriyadda iyo halganka laga aasaasay insha allah haddii alla yidhaha ilaahay anagana hanaga dhigo 100 sano kadib kuwii halgankaas
iyo wanaaga fara badan ee Soomaalinimada iyo diinta Islaamka loo sameeyay ka jawaabay Ilaahay anaga dhigo waan dadaali doonaa wanaaga faraha badan iyo ishaarta faraha badan ee naga bixiseen Ilaahay anaga dhigo kuwa aan beenaynin oo la oran sidii la moodiyay ma noqon waan dadaalaynaa idinkuna shacabka naga jecelaatihiin noo samra nasuga inaan halkan nimaadno intaasoo 100 kilomitir soo soconno oo la seexano oo halkan joogno ayaan khaatika inaan danaynayno rabitaankiina iyo waxa rabtaan iyo wax iyo baahiyihiina mar kale waan salaamayaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.